waxaan halkan uga mahadnaqayaa madaxda qaranka ee ka soo qayb gashay madashan bandhigga buugga. waxaan kaloo mahadnaqayaa madaxda mucaaradka iyo ururada. waxaan halkan mahadnaq uga soo jeedinayaa danjira Congo. waxaa kaloo aan iyagana mahadnaq ballaaran u jeedinayaa qabanqaabiyayaasha madashan bandhigga buugga iyo bulshadan caawa halkan u timi in ay nagala qayb gasho bandhigga buugga danjira Congo. buuggan aynu halkan u fadhinaa waa buug ka hadlaya taariikh nololeedka iyo sooyaalka diblomaasiyadeed ee danjira Congo. waxaa laga yaabaa jiilkan maanta nooli inaanay aqoon u lahayn danjira Congo yuu ahaa ama maxay buu soo qaban jiray. dhammaan taariikhdiisa iyo noloshiisa waxaa loogu tegayaa buugga. haddaan dib yar dhigo gudagalka buugga iyo wuxuu koobsanayo aan ku horreeyo. marka hore waxa aan anigu ka mid ahay dadka jecel akhrinta taariikhda gaar ahaan taariikhii hore iyo taariikhda hogaamiyeyaasha boqorrada iyo siyaasiyiinta intaba. waxaa jirtay buug la yidhaahdo siyarul aclaam walnubalaa oo aan waqtigii hore ee aan yara aad u akhriyi jiray. buuggaasi waxaan ka bartay waxyaabo fara badan oo ku saabsan noloshii culimmadii hore iyo boqorradii hore adduunka soo maray noloshoodii iyo say u noolaayeen halgamayaashii hore. sidaas awgeed marnaba maankayga kumay soo dhicin in aan qoro buug ka hadlaaya taariikhda siyaasi caan ah ama danjiro caan ah oo weli nool. marna maankayga kumay soo dhicin. 2016 ayaan tegey magaalada Shaariqa. maalintii aan tegey fiidnimadii waxa aan gaadhay guriga danjiraha. su-aashii ugu horreysay aan weydiiyaa waxay ahayd adeer weli ma iska qortay buug ama qorshahaaga ma kugu jirtaa in aad noloshaadii hore iyo siyaasaddii iyo taariikh nololeedkaagii hore wax ka qortaa? intuu qoslay ayuu ku jawaabay adeer nin mashquulsani maba haleelayo qalin haddii aynu hawshaa ka wada shaqayno marka ay ku dhammaato howlaha aad u timi halkan waxa aan rajaynayaa in aynu qori doono buug. dabayaaqadii sanadkii 2017 ayuu ila soo hadlay haddana. intaaba waan isku arkaynay laakiin go-aankiisii u dambeeyey wuxuu gaadhay 2017 oo uu yidhi cumarow kaalay hadda ayaynu qoraynaa buuggeen. anigu markaa anigoo isyasaya oo isle malaadee waxa ku munaasab ah qof aan adiga ahayn buuggan ayaan ku yidhi adeer buuggan malaa qof kale inuu kaa qoro ayaa munaasab ah. suu yidhi adigaa ila jooga wixii aan kuu duubo ama aan kuu yeedhiyo qor. horta hawsha buugga sidaas ayaan ku bilownay buugga danjira Congo. waxaan mahadnaqayaa qorayaashii aadkay u dhiirigelin jiray in aan hore u dhammeeyo buuggan oo aan qalinka markii horena u qaato dhammeeyana. qorayaashaa waxaa ka mid ah Axmed Ibraahim Cawaale oo ah qoraa taariikhda Soomaalida iyo deegaanka wax ka qora. waxaa kaloo ka mid ah Sayid Axmed Dhegey oo 2 toddobaad ka hor halkan ku soo bandhigay buuggii guriga dariiqada. nin aan saaxiib nahay weeye. wuxuu had iyo jeer igu odhan jiray cumarow mar haddaad Shaariqa la joogto danjiraha buugga ka qor oo waqtiga ha dayicin. alxamdulilah maanta waxaanu joognaa buuggii oo aynu caawa u fadhinaa in lagu falanqeeyo halkan bandhiggiisa. kollay qoraal codka marka qoraallada buug la qorayo way kala duwan yihiin dhibaatooyinka ama hawlaha ay leeyihiin. intii aan wax qorqori jiray buuggii igu dhib badnaa horta wuxuu ahaa kan sababtoo ah waa qof codkii baan dib u qorayay. waxaan ku guda jirnay hawsha buugga iyo qoraalkiisa
buuggan dee marka qof nool laga qoraayo qofkaan nool wuxuu ku yidhaahdo ayuunbaad noloshiisa qoraysaa wax kale oo aad qoraysaa ma jirto sidaas awgeed cabdilaahi marka aan la joogo waxaan ka duubayay cod marka aan ka maqanahayna whatsappka ayuu igu soo diraya waxaan xasuustaa maalmihii kooronaha lagu jiray dadka 60 ka weyn in loo tago mamnuuc ayay ahayd sidaas awgeed muddo 8 bilood ah ilaa 7 bilood cabdilaahi gurigiisa maan gelin sababtoo ah kooronaha ayaa xoog ahaa cabdilaahi si aan uga baxno hawshaas oo aanay shaqada ku istaagin wuxuu duubayay cod whatsapp ah anna halkaasaan shaqadii ka sii waday buuggan aynu halkan u fadhinaa kolley waa hadal baan u mashquulsan yahay waxaan jeclaan lahaa inaynu isdhegaysano si aynu aad baad mahadsantihiin waxa buuggani uu ka kooban yahay 8 cutub qof kasta oo akhriyay buuggan sheekooyinka qaar baa cajabiya oo uu ka warramaa qaar baa dhacdadii inqilaabku ay aad u cajabisaa oo iyagoo ordaya intay ii yimaadaan igu dhahda cabdilaahi inqilaabka sidan iyo sidan buu uga warramay qaar kale ayaa ii yimaada oo yidhaahda cabdilaahi waxaanu ka helnay sheekada masar markuu jamaal cabdinaasir u qoray warqadda waa sheeko cajiib badan qaar kale ayaa igu dhahda niyow suudaan markii laga soo eriyey sheekada siduu uga sheekeeyey waa sheeko aad u yaab badan iyo nimankii suudaaniiska ahaa wixii ay kala yeeleen haddaba aniga waxaa igu yaab badnay sheekooyinkaas marka laga tago sheekada hooyadii wariskadiye oo la soo halgantay ayaa aad ugu cajab badnay waayo hooyadii waxay awgii ay u gashay halgan ah inaanu miyi qaban oo aanu halkaas xoolo ku raacin waxaa kaloo halkan u gashay sidii ay uga saari lahayd yacni waxbarashada waxla'aanta hilibley ayay u noqotay si ay wax u barto maalintii aan buugga dhameeyey waxaan ku udhi adeer waxbaa maqan buuggan oo ayna ka tegi karaynin dabeedna wuxuu igu udhi oo waa maxay si aan ku udhi sawirkii hooyada wariskadiye ma haysaa iikaadii tibdhi buu kacay dabeedna qolkuu galay wuxuu soo saaray sawir yaroo kura waxaan u lahaa allah ha u naxariistee wax badan bay ii tartay bal buuggeeda muuqeeda ha laga arka buuggee balgeli marka waxa weeyaan waa sheeko aad u yaab badan hooyadii wariskadiya allah u naxariisto buuggan qaybta hore wuxuu kaga warramayaa danjira koongo noloshiisii waxbarashada ahayd ilaa iyo intuu masar ka soo noqonayo nolosha qaybta dambana waa noloshiisii diblomaasiyadda marka nolosha qaybta hore waxaa ku jirta 3 arrimood oo muhiim ah ayaa noloshiisa intooda ku jirta waxa weeyaan calansaarkii 1960kii juun 26 waxaa kaloo ku jira markii xamar uu u raacay maxamed ibraahim cigaal iyo wafdigii xamar tegey waqtigii israac wax faahfaahina ka bixin maayo dadka dambe falanqaynayaan u daynaya dhacdada arrinta saddexaad ee yaab kale waa inqilaabka markaa 3 arrimood waa arrimo u baahan mid kastaaba in buug gaara laga qoro inqilaabka buug gaara waa laga qoray oo waxaan xusayaa qoraaga sayid axmed dhegey oo buuggaas gabigii dhicisoobay qoray laakiin arrintii israaca oo gaar ah buug gaara lagama qorin calansaarkii arrimahaas waxaan ku soo gabagabaynayaa hadalkaygan dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin waxaan sugayaa falanqeeyayaasha iyo madaxdu waxay ka tiraahdaa buuggan inaan dhegaysto aad iyo aad baan ii salaamaya dhammaantiin maasha allah soo dhowaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmed waxay kuu diyaarisay adeegga internetka ee fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagarla'ii ku isticmaal social miidiyaha kuna daawo wararka
cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121